magaalada Mandera ayaa maanta lagu qabtay munaasabad si heersare loo soo agaasimay oo lagu caleema saaray ugaaska guud ee beesha Garamooga oo ka tirsan beelweynta Gabaabeen ee kamid ah beelaha ku nool ismaamulka Mandera. Munaasabada ayaa waxaa ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka, culimada, aqoon-yahanada, haweenka, dhalinyarada iyo qeybaha kale ee bulshada beesha, kuwaasi oo dhammaantood muujiyay taageero iyo midnimo lagu maamuusay hoggaanka cusub. ugaaska cusub Sheekh Maxamed Cabdiraxmaan Xuseen ayaa si rasmi ah bulshada horteeda loogu xiray dharka hidaha iyo dhaqanka, kitaabka Quraanka Kariimkana lagu dhaariyay. insha Allah ta'ala Sheekh Maxamed kitaabkan waa kitaab 114 way adin culuma ata talwiinaha oo Garmoog iyo kuduubi tolbiina Garmooga ku wada duubadi kitaabkun way fadahayne Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisu ay adduun iyo aakhirana kan in la ka dhaqamo iyo anfayle tolki in adlikiin dhiibi oo tolwiinaha adlikiin dhiibi Garmoog iyo Guwaynba meel kasta ahaato oo ma aragtay oo muslim ah in kitaabka Quraanka ah oo inii ada ka maamulo oo adiina ma aragtay kitaabka Quraanka ada ka maamulo yakiinka dhiibi aqbali arintaas iyada ah aan ku maamulo tolkay dadkay diintay dalkay ya dhaarka mar insha Allah ta'ala in ana wal oo daacad ahayn oo in aan ka maamulo hilween al isaari ilaahay in fududay marka horeyso insha Allah ta'ala anin ku dad shay rahen oo dubi weeyay la daay oo ka gaasna ilaahay ee dhakor intaas soo tolka oo ay dooradi oo meel kasta ko ila meel kasta ko koy afarta bandiir ko koy oo aan ay dooradeen oo aan ay baasan ila jeclaadeen iyoon ilaahay ma ka eeway anin ilaahay ma eeway heelkaas ilaahay ee la garab gala insha Allah ta'ala eed aan mahadsi anin ka faraxsan iyadoo hel culus ataadan ka sii faraxsan ila tolka isaarade marka insha Allah ta'ala markaan wal Allah walaahi ulees un karaan bin aadin an wal un karaan wa lugmeen dhakaan wal un karaan ilaahay amarshay ku kooy waa gooni waay ilaahay uu ne garab gala insha Allah ta'ala aamintaan ilaahay aqbala dhulka kamnaagay todoba samada ilaahay aqbala saatul ijaab ilaahay nawaafijay faatix intii ay socotay munaasabada waxaa halkaasi ka hadlay odayaal iyo aqoon-yahano kuwaas oo ugaaska cusub u rajiyay inuu noqdo hoggaan mideeya bulshada kuna shaqeeya cadaalad. maanta waxaan ku faraxsan yahay xafladan weyn aan joogno xafladan waxa waay ugaas Sheekh Maxamed Cabdiraxmaan ayaa la doortay oo tolkii soo baxsadeen beesha waxa waay Garmoog ka tirsan Gabaabeen aan joogna maanta markaan aad iyo aad ugu faraxsan marka maadaama ugaaska la doortay iyo guddigii waxaan rabnaa insha Allah in maartay cadaalad ay sameeyaan shaqadii maartay oo tolweynihii ay qabsadaan aan rabaa tan kale anaga sida ogtiin meelaha waxaan nala degan qabiilo badan nala degan dib kasta imaada guddiga iyo ugaaskaba insha Allah waxaan ka codsanaynaa in maartay qabiilaha kale nala degan si walaaltinimo ee maartay sharaf leh aan la degna dib hadees imaadana in maartay dibkii la xalay waxa yeelay in badan maalmaha waxa waay dib hadees imaada waxa la aada biliis ugaaskan iyo odayaalka waxa loo doortay waxa waay dibkii dadka ay weyna ay qabaan markay u imaadaan waxa la rabaa arintii inay maartay fariistaan ay falanqeeyaan ay xaliyaan ayaa la rabaa insha Allah ilaahay subhanahu wa ta'ala ugaaska maartay ilaahay u fududeeyo guddigin ilaahay u fududeey insha Allah dib badan soo marnay waxaan rabnaa marka maadaama dadka midnimada wax ku xiran tahay maamulka ugaaska iyo maamulkiisa ay fiican yihiin midnimo ay imaaday marka dadweynaha kale waxaan rabnaa ugaaska si la sheegayba iyo maartay guddigii inay ka dambeeyaan ay xishmeeyaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh geeka way dooranay ugaas Garmoog iyo maartay nin duuban geeka asagooba mas'uuliyad hoog badan haay kol horba sheekheena ahay haddana mas'uuliyad kare oo koofi weyn ah loo daray marka ilaahay noo barakeey
qur'aanka huud iyo ancaamka la saaray ilaahay barakada hana siiye ninkan had inta fadhiya qur'aana la saaray waa miinaysan waxaa la rabaa tolka si fiican hay maqliya ninkan waa miinaysan yahay ugaaska la doorti waa sun waxaa la rabaa in amarkiisa la qaato amarkiisa haddaa qaadan waysid coloosha uu kuu qabta bes waay adiga noloshaada ayaa maaragtay wax galaya hala ogaada taas iyada horta annagana mas-uuliyiin haddaan nahay ugaas iyo ugaasiintiisa isku xiran aad iyo aad aan ugu faraxnaa marka ugaasow wax hadda noo hari waa dardaaran hawshii lagu dhiibi waa culus tahay habeen iyo maalin waa lagu hurgefinaa adiga guddigaadii madda labaad ugaaskii iyo guddidiis inay dadweynihiisa fayla ninka adeegan kuraawa ilaa madheera indaalna meelba miin baryaan hoo qaraanka no koro dhiiga no koro si saafiya dhiigi ninka qaadan oo kan yaqsoon taasa faataadka maradaana qolay odayaal kala liin dhiibi doona wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakatuh ugaas doorini ugaas ilaahay maka adaabote ugaas guud ee waa doorini garmoog ugaaska inka laka dambeeyo od shayliin furo wali usu faro farsanaado wali usu reebanaada horta oo ballan qaada taas ballan qaadana in ugaaska ka dambeeyo ballan qaadnay ballan qaadnay tan kale lamaad ugaasow tolka ka jeeliya ku dooridi geeka mada korsheet mayl fadee dardaarta an dabar marne dardaarta ka socoto kitaabka adalkiin dhiibi ka socoto ilaahay maka adaabo ete magaca garmooga ka doorati ilaa ummadda ilaahay dhanga ugaasan et ilaa garmooga ka doorati guwaayinga ugaasan et ummadda kala lakin weerdhide meel kasta lakin ka weerdhide gar kasta galaas in ad ilaahay maka adaabo ete haliyayki korjari allakee weela saasa kiinka do-aayana horta inta inkasaan horta nilis barada faylata magaaga weelere ugaas cali nuur magaaga aliyow ala nuura leere laakiin ugaas cali nuura ka magac dheeri ugaaska guud shanta jilib suufa ay ninka inkasaan kulle hadda inay barada saas iyadoo ay tahdana laakiin nin may aye garmoog beesha anaka dhaladiya garmoog maasha allah ninka geeka hadda inta wala aan roogo ugaaskana qiimaha badan sharafta badan iyo tolkun qiimaha badan ha ajiibi rag iyo dumarba inta mayleerahay ugaaskana ku duubano oo mayleerahay geeka mayleerahay dadka dhan la ogaadan iyo anta unkoyni ninkii walor nin ogayna ni qosol jeer geeka qosol ma jero mayleerahay kasto yar macnaha murug gili iyo erlaay horta koow midii lamaad sheekha sidii inkasaasan oo la horba mayleerahay odiya nin hay hordhiga wilishay nin hay hanin dadaalay intaasoo sina shaqeey haddana maadaama tolkii haskaray inay u saadana la doorada marlamaad sharaf wiinga nin eta wayna mayleerahay meelun ka mahad celiye dhammaan senior chiefka mayleerahay xaajiga oo mayleerahay isuuna ana ajiibi maasha allah culimada odayaalka dumarka maamooyinka gabdhaha dhalinyarada kulli way siin leeyahay mahadsantan khayr alla siinsi hadhawaada caleemasaarka ugaaska guud ee beesha garamooge ee ka tirsan beelweynta gabaabin ayaana ku soo dhamaatay si nabada waxaana lagu soo xiray duco اللهم إنا نسألك رضاك والجنتك ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين